aadanow inta maamulkan qabsataba haddaad nabad sanooyinkaas aad ku dhammaysatid aad habeenkii nabad ku seexad dembigeedana anigaa iskale. hadaad dad kale soo adeegsaday oo ciidamo kale soo adeegsaday oo xasan sheekh uu yidhi meesha lagu geeyey 77 kursi halkaas iiga keen inaan soo noqdaan rabaaye oo aad ku heshiiseen aadamadoobow adiga kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena xulashada wararka qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah taliye shub oo u hanjabay Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe waxa uu wacad ku maray inta uu Aadan Madoobe joogo magaalada Baydhabo ama Koonfur Galbeed uu hoggaankeeda hayo in uusan habeen nabad ku seexan. hanjabaadii ugu weyneed oo uu taliye shub u jeediyay Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo waliba Aadan Madoobe iyo xirtiisa. barnaamijka xulashada wararka ayaan idinku haynaa idinku soo gudbin doonaa. fadlan daawada haddaad ku cusub tahay baraha aan ku leenahay bulshada kusoo biir channelka subscribe noo saar muuqaalka like garee oo share garee. taliyihii hore ee ciidamada asluubta Soomaaliya taliye shub oo la hadlay warbaahinta ayaa hanjabaadii ugu cuslayd waxa uu u diray Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe. waxa uu sheegay inta uu nool yahay in uusan Aadan Madoobe habeen nabad ku seexan doonin Koonfur Galbeedna uu godob weyn uu ka galay oo uu ku soo hogaamiyay Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdiisa si loogu dhaco Xasan Sheekh Maxamuud 77 kursi golaha shacabka ee ka soo gala deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. waxa uu sheegay inta uu haayo hoggaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya isaguna uu nool yahay in uusan habeen hurdo seexan doonin oo si nabadgelyo ah uuna ku seexan doonin. talow muxuu la jeedaa? barnaamijkeena xulashada wararka ayaa kaga bogan doontaan oo waraysiga oo dhammaystiran aan idiin sii dayn doonaa. sidoo kale waxa uu sheegay in ay iyagu hadda ku jiraan halgan dib u xoreyna sida ugu dhaqsaha badanna Aadan iyo waliba ragga la midka ah ee Koonfur Galbeed ee horgallada ah ay uga saari doonaan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. waxa uu sheegay inay diyaar u yihiin maalin iyo habeenba in ay la dagaalamaan nidaamka iyo maamulka uu hogaaminayo Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe. haddaba maxay tahay sababta uu sidaasi oo dhan ugu goodinayo taliye shub oo aan ognahay inuu ka mid yahay odayaasha iyo waliba siyaasiyiinta iyo ragga ciidanka ah ee muddada dheer ka soo shaqeynayay nidaamka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Aadan Madoobe miyuusan xaq u lahayn in uu isaguba u qabto kursiga madaxweynenimo ee Koonfur Galbeed? maxay ku kala duwan yihiin Aadan iyo waliba lafta gare maadaama laba nin oo digil iyo mirfle ay yihiin? ma cid gaara ayaa iska leh hoggaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya? ma qabiil gaara ayuu u xiran yahay? barnaamijka ayaan ku falanqayn doonaa arrimahaani oo ku dul istaagi doonaa. fadlan daawada haddaad ku cusub tahay baraha aan ku leenahay bulshada kusoo biir. taliye shub hadalladiisa waa ay cadcad yihiin waxaanad moodaa in uu yahay nin gadaal wax ku og oo og inuu dhaafi doono Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe xukunka Koonfur Galbeed. aadanow marka hore inta maamulkan qabsataba haddaad nabad sanooyinkaas aad ku dhammaysatid aad habeenkii nabad ku seexad dembigeedana anigaa iskale. hadaad dad kale soo adeegsaday oo ciidamo kale soo adeegsaday oo xasan sheekh uu yidhi meesha lagu geeyey 77 kursi halkaas iiga keen inaan soo noqdaan rabaaye oo aad ku heshiiseen aadamadoobow adiga diyaaradaha joogaanaan lagu daynayn. diyaarada aad keento bays u dhistay oo yaan lagugu daynayn. in lagu daaya habeenkii xalaa tagay waay. dadka ha ku dhammaynin nabadda meeshay kaa jirta waa taqaanaa raadi. wabilaahi tawfiiq. haddaad xiliyahaaga lay ku imaan lahayd oodan xasan sheekh iyo wixii uu watay iyo aadan aysan ku keeneen oo xiliyaha adiga aad leedahay aad ku imaan lahayd iyo xiliyaha reerkaaga wax badan baa laga wada hadli lahaa. laakiin hadda la hadal ma lihid xabad unbaa hadalkaaga meeshaan
dalka digili marifle iyo maamulkii jiray dadkii qabsaday oo ku soo duulay unbaad ka mid ahayd adigana xamaraa qabsatay asluubta aadan madoobe iyo wixii wehliyeyna waxay qabsadeen baydhabo baydhabay qabsadeen dowladdaasi markay dhisnayd dowlad aadan madoobe aada looga tixgeliyey gudoomiyihii baarlamaanka duqi maartay koonfur galbeed u darajo weynaa aad baa looga tixgelin jiray halgamaayaashii hore odayaashii iyuu ka dambeeyaa waxaasaa maartay lagu tixgelin jiray taas waa halkaas aadan midaan u sheegaa marka aadanow inta maamulkan qabsataba haddaad nabad sanooyinkaas aad ku dhammaysatid oo aad habeenkii nabad ku seexat dembigeedana anigaa iskale haday taas dhacdo dembigeeda anaa iskale ma u seexanaysid nabad kuma seexanaysid haddaad nabad ku imaan lahaydaa nabad aad u seexan lahayd taasna waa midaasoo nasiibkaaga adaa bilaabay colaadda iyo dagaalka iyo dhibaatada adaa dad kale soo adeegsaday oo ciidamo kale soo adeegsaday oo xasan sheekh uu yidhi meesha halagu geeyey 77 kursi halkaas iiga keen inaan soo noqdaan rabaaye oo aad ku heshiiseen aadan madoobow adiga xasan sheekh ma soconayso 77kaas si lagu helo waa adagta wax kalaa ka xiga wax kalaa ka sokeeya taasna waa midaas haddaad xiniyahaaga lay ku imaan lahayd oodan xasan sheekh iyo wixii uu watay iyo aadan aysan ku keeneen oo xiniyaha adiga aad leedahay aad ku imaan lahayd iyo xiniyaha reerkaaga wax badan baa laga wada hadli lahaa laakiin hadda la hadal ma lihid xabad unbaa hadalkaaga ah taasna saa ula soco ninkii digili marifle u sarreeyaad ahayd ninka xarigayga ogolaado halla xiriiri baad ahayd inaan ku boogahay hamoodi intaas og baa nahay inta la shirteen xasan sheekh kow horta koonfur galbeed maa lagu duuli lahaa kan xir inaad adiga tiri waan oga haddaadan adiga dhahdeen oo aad ogolaateen aniga maba la xireen adigana nabad uma seexanaysidoo madaxweynea nahay beentaa waay inaad baydhabo nabad u seexatid looma fadhiyo xariggii unbaa laga jawaabi boobkii aad koonfur galbeed ku samaysay oo dad kale usoo ijaaratay unbaa laga jawaabi habeen haddaan laga jawaabin habeenka kale waa lagaaga jawaabi weligaaba diyaarada keenso soo xoojiya dhe qayli waa liugu wareegsan yahay dhe waxaasoo dhan ku qayli diyaaradaha joogaanaan lagu daynayn diyaarado aad keento bays u dhiste oo yaan lagugu daynayn in lagu daaya habeenkii xala aad tagay waay dadka ha ku dhammaynin nabadda meeshay kaa jirta waa taqaanaa raadi wabilaahi towfiiq waa tahay daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeena xulashada wararka oo aad kala socoteen waama TV fadlan daawade haddaad ku cusub tahay baraha aan ku leenahay ku soo biir haddaad horey noola joogteen barnaamijka like gare oo share gare si uu dad badan u gaaro mahadsanidin